kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni ma ogid ilaa ogaatid ee jimcaha kasta ka baxa TV-geena Nasir Ogle maanta ina warbixin telefishin jeedina camala magaalada gadaal marsiiste igu qaata marka jimca wanaagsan muuqaalka maanta inta shab iska dhihin marka hore waxaan rabaa inaan la geliyo jimcihii hore muuqaalka soo daahay jimcihii hore waxa ku mashquulsanay aroos mid kamid ah asxaabteeda khaaliga oo adkii ugu dhow arooskeeda ahayd اسبوع كوري ما نشقيني ما نكاس ردك لي قبط ملهين هبين كاس لما بتبوداي باشا يحكو جري أروسيبو موت كله مركا جماعة ونكسن هذا ما شمع كسي ودنا حلقتين التوني كوات برنامج كيني ما أوجد إلى أوجاتد ما أنت موضوعك هلنا موضوع حيس له ويجارهن أنا إله وحكى هلنا وحيابها بني آدم قوس ما يعمل أخمد وليه مت كمية وحيابها أخرى حبلهم أو حبس السنتر إسي عرفت هذا الربع I don't know أنا لو بدأ قف بين هذا ووريس حب إسي سمعكوا فكرين like سيلوه هلا مركوري سيلوه سوق هذا ما لا صار شيء وحي ما أصول دقي مسيجا إسكا أوجادين هاو سيلوه ولا مكسي لكن وحي تهبو هبتا محيط هاي محل فائدة محل كوسحنتا بحكو قلبنا هاي أنت لقيها لا وحصل لنا كفلم خير دونا مانتا سولو كوب كاش حصو خاضو let's go وبالله بينا عنقني وقل لي إننا سنكون بخير داروين سوف نكون بخير يا عزيزي هبطة مو مالينا إنا واكرتك هبطة سأوجي عليها أنت إتخانة وإتخانة أنا almost قفل بقى أقانو هباسية وكخطأ ميت كميدة وحيابها ووجي عليها إيمانين كي إنك من نقطة قصب إيه هاي واي هذه فميل كيجا صاحبة ذا دتك أسمع شخينو دتك أسنخانو وجيران مانك وحاحلة أنا أهان ناصر شن تمن هب أو دتك ردوان كإماتي at this point أنا إجماع هن habit عادي أو إسكال قبض إسكال سمعيته أو أنا كبر خبين معهن وريتشوال عادي أبراكتس قريبه وقاب أقول لك الخوف كاستنولوجي تكمل هاي ماشي عمل سيفي واي وكوجي ذا ومخلوير أنا وهل أريدين هاتي إن أنه we're connected يوم هل ده مركز أريد حبسين تا مركز إنا حبسي ما هندت كانيجا مرمت خاركود أنا خاطو مع مركز حبسين إنه مرمت خاركود وحوا أنا أباهن أنا يجمع كنت هبتس وحويني خبرنيسا مرمرك خارن أقف خبسينا يوا مر وبهاي قفك أدريمي من قلبيس بس بدأ ساريه سو مرمرك خاركود ودي بيسا مرنا وخادنيسا هبتنا وحكم التهي خاوبك أو سيمبلسن أجعل كل دي بكرتت كنا خادن كرتت أروح الأريدي أوكي هب 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 محاول هب سيست حدا أوفي لسيست هبت لو شيء أنا محاول لا بقف ولا بقى إنجليزي وقعمول سعود طوبين سيمبل أنت سليم لا إنجليزي لا لا بجلس بس ليه لكن هدي ولي هبلو وسوسي حلي سحلة أو بهنت وحدري مسا إن أنت سيك بدنا شيء كذا أو إيك خاطر درتاهي و comfort connection إيو إسكسو دوان شو أنا لفسير كرين أرين وقعبر كرين ودرين أو بهنتهي قفل بنو بهي بنادنا وفيرسو مركز أخوفها جعشها وحيس أردت وحوجه رجلك أو سمينا محاول وحور بأنه قف كسر قبصه وكسر دوادو لاكتس جلسان حبس استيسان marka isma salaamin isxab istiisan maxaa elbork lagu yaakulatahay qof markii isma salaamin oo wadanka baxay meel kale aadayo way hab lisku siiyaan nus saac oo isku dhigdhiga oo maanta nadaha saaysan bala 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 ido eray badan xil dhigini habta waxay ku ogolaanaysaa in eray badan aad ku dhaxday jirkaaga afkaaga soo marsi karin adoo qofka ina kala fogaanaysiin oo kala tagaysiin oo adduunyada laba meel ku kala tuurtay oo xiis doontid xanuunka ee leedahay hadda aad dareemaysid aw xasiinaysaa qofkan hal hab taasoo eray badan bixi karto eray badan aad ku fahmi kartid adiga xanuunkaasna aad dareemaysid hal mar waxaa daminayo ereyada isku dhaafsanaysaan habta gudaheeda hal mar aad laabta isgelinaysaan qofkii isla markii waxaa isleedihiin waa ku jeclahay waa ku xiisi doonaa be safe makaa maarmi dooni isoo waa in kaste balaabalaa wax cun wax cab anything u baahanta qofkaas inaad gaarsiisid automatic loo ku shubtid adin waxa la wixii u baahnay inaad maqashid qofkaas aad ka reebatid waa ka reebal had oo jecel ah waa ka reebanaysaa ayaanta ana shigshiga bilaw ma akhani arooskeega soo dhoomalina so diyaaradda markay saas ku kacdo adoo qalbiga ku xanuunaadin waxa og tahay habta ugu dambeysay inay wax walba kaaga dhigan tahay oh my god okay habta waxay tahay aragnay maxaa u sameeyna marka way hab isku siina way qofkan aan jeclahay marka arko ina ciiji u raba way jirkii u lijina way wadnaha u saara way u sameeyna waxaas rumaysanin bini'aadanka waxay ku programsan yihiin taabasho dareenka taabashada waxyaabaha ugu horeeya marka ugu horeysa aan dhalanaba aad develop gareeyna waa cunuga markuu saas u dhashto hooyadiisa dhabanka loo saara laabta loo geliya garaac wadnaheedu dareema garaaciisa la maqlaa
haba la siiyaa qandac diirnaana la siiyaa waxaasoo dhan oo ka helaa taabashada wax ugu hore ay develop gareen waa markii in arag iyo waxa la gaarinba cunuga markuu saas u dhashto luqadda ugu horeysa uu fahmaayo waa taabashada wuxuu la qabsanayaa heerkulka jirka hooyadiisa aragteeda qaabkay u qabato gacmaha sida ugu dogto waxaas dhan laabteeda ugu dhow yahay soo caruurta markasta waalidkooda ay laabta ku hayaan ama kor u xambaarsan yihiin ama dhabta ay u saaran yihiin waxay badanaa ku koraan inay noqdaan ilmo badanaa degan xasiloon safety dareemayo oo qalqal waxaas lahayn boodbood badnayn oo cagaha dhulka u yaalaan dareenkaas wuxuu siinayaa marka raaxatul baal comfort uu ka helaa cunugaasiti as the time oo socdo aweynaananaka waxaa u maleynaa inaan dareenkaas ka weynaanin laakiin ma ka weynaanin markaas la waxa ka dhigna inaan ka weynaanin laakiin wali u baahanahay because bin aadam waqtiga adduunka ku haysan aad u yar yahay anaga waxaan haysanaa 60 sano 80 sano dareen oo intaas sano soo dhisaysi ma lagu baabi'i karo waa dig abina ta ma ugu 700 sano aan leeyahay laakiin inta bin aadam tahay dareenkaas ma ka korin anaga la iska dhigna inaan ka kornay waa tahay habta maxayna dareensiisaa marka dareen ka sheekayna maxayna dareensiinaysaa personally ana waxa ku sheegi karaa habta inay bedeli karto jawiga oo dhan qolkana jawigiisa bedela atmosphere-ka hamar wuxuu noqonaa mid kale iga qor hal mar qofka laabta gelisid conversation-kiina ka hor waxay ka caawinaysaa inuu wada sheekaysiga smooth noqdo in isfahantiin in oo qaba lagu kala jirin in afar la isku taagtaagin la isximin everything qanda oo noqdo diirmaad lagu dhameysto isfahan waa ku arkooya ku maqlooya ee ku dhamaatay baasha iga qortaas ani aan nolosheeda waxay soo martay xilliyo aad u culus oo nolosheeda dhinacyo badan barashar iga soo fuulayeen hal mar uu qof habisiya waxa dareemaya laabta dhan inay noqonayso light khafiifa dareemaya wadnaha culays ka degaayo ruuxda in neefsatay amla dareemaysa adinka xataa dareenka waa fahmosiya ka isku dhameedna dareenka kan waa fahmosamo yes that one yes adoo jawiga ka khaldan yahay maanta dhan oo culays badan dareemaya shaqada barashar ka haysto arrimo financial kuwa adag yihiin relationships-kaaga culays ka jiraan family xaqiisa waxyaabo la fahmi karin iyaga isku khaskhasay yihiin oo maanta nin jawiga ka khasiya madaxa hoos aadaya culays badan garbaha ka saaran qof saaxiiba ku imaanayo asoo waxba ku sheegin hal ereyna ku dhihin laabta ku gelinayo isla markii waxa dareemaysaa qofkaas erey walba aarad inaa maqashid inuu ku dhahoyo asoo af kala qaadin oo ku ogahay waan ku dareemoyaa ana ku joogo kaliya ma tihid ee ereyo badan oo afka alu waxbari karin okay intaas ka soo qaad inay tahay anaga iska dhaadhicin inay waxaas nadareensinayso oo anaga isku dhiirigelihoono science-ka muxuu ka leeyahay marka cilmiga muxuu ka dhahay habta guess what science-ka xatee wuu nagu raacsan yahay wuxuu leeyahay habta waxay soo deynaysaa oxytocin taasoo ah hormoonka jacaylka ana ma dhihin soo barbu waqta mar hadii laabta aad gelisid qof aad jeceshahay jirkaaga automatically wuxuu soo deynayaa oxytocin kaasoo ah hormoonka jacaylka wuxuu ka caawinayaa stress-ka inuu hoos u dhigo anxiety-ga daciifiyo blood pressure-ka hoos u dhigo literally jirkaaga shaqada caawinaysa waa ma halas kadib ma xasmay karna cadeena ku heena qof habarta la mar la soo sii waa dareemay naftiisa dareemaysa ma halas kadib maxaa ku dhaca marka ani okay raali ah tartiib oo hadleena hab dhowr iyo 10 second qof habsiise waxay kor u qaadi kartaa moodkaaga maanta oo dhan allah even research-yaalka qaarkood waxay sheegaan dadka badan habta siiyo inay ka xanuun yar yihiin dadka kale maxaa yeelay immune system-kooda kor u kacayo intaas qof bini'aadan ay taabanooyin intaas qof bini'aadan la neefsanooyin intaas qof bini'aadan la falgalooyin immune system-kooda uu si dhisma ilaa awood ay gaaraan heer xanuunada ku yaraadaan ana ma dhihin imagine that free medicine daawo bilaash ah waaye oo side effects lahayn oo qarash ku bixinin free just a hug okay science ku maqalnay islaamku muxuu ku leeyahay habta Allahu akbar islaamka xatee habta wuxuu arkaa wax aad u qurux badan nabiga calayhi afdalu salaatu wasalaam muusan ahayn qof distant ah oo cold ah wuxuu ahaa qof naxariis badan oo affectionate ah oo u dhow saxaabadiisa dadka uu jecel yahay u dhow jecelkiisana muujiya afkana ka sheega ficilna ku sameeya intaas kaga dayna nabiga mid kamid ah sheekooyinka quruxda badan ee suubanaheena lagu soo wariyay waxa kamid ah in Jacfar bin Abi Talib muddo ay kala maqnaayeen rasuulka markay dib isugu soo laabteen oo rasuulka calayhi salaam habsiiyay muddo dheer una ku ooy waliba waxa uu la weynahay rasuulka calayhi salaam ma ahan in mid lagu bobsiyo ama jug loo qariye ee waa kalkacayl iyo naxariis iyo xiiso badan oo u qabo Jacfar bin Abi Talib
ولا بقف أو وناك كالكعيل ما هنا وح معنا نسكوهيني أريد بدأ إيش دافسدين أنت سكدي مركز لقى صوتك وهبت عسكرية وحيقود بسيد درين فربنا النبي عليه السلام هو هاي أي جعفر كوري جسي جعفر السيدوك الوح ولا بقول النبي ليه ربي هبت عسكوجود بي مركا تاسك ما دقيس رسولك عليه السلام يا جعفر أسجل تركي سبا إني من ضعيفة بقبل وحكي دقيس سقف بني آدم أود له درين كيس كبر خبا أو نحريس بدن له دين تير نحريس تبدن وحنا بريسا نحريس مدة وير إن صدق الجشو هل مرة أخاف لابد أجلسيت أو حكومة بعد كرتان مالين كيس أودان وحكومة بعد كرتان نفس الديسة so goormee qof hab la siiyaa qaabkeesa loo siiyaa of course habta waxay leedahay meel ku haboon tahay xaalad kasta in habku tuureys ma qofka marka laabta iska gelinaysa meel walba iyo waqti walba no sidoo kale ma ahan qof walba inuu jecel yahay habta dadka qaar ku bixin abayin physical touch oo dhan gacmis gelis iyo habisiin iyo istaabasho iyo garab isku dhaqsho physical touch dhan waan abayin dadka qaar kood so adiga laga rabaa dadka noloshooda ku jiro qofkii hab la siiyaa qofkeesa hab la siinin goormee la siiyaa goorma la siinin ma jira hada saacad gooni wallahi 7 saac ilaa 8 saac u dhaxaysa habta ku fiican tahay ama 9 saac markii la gaaro ilaa intii gaarinaya habta ugu wanaagsan jirta is dareen waaye waa when you know the right moment markay aragto qofta habka ina secret dhigato qofkan uu baahay habtan xilliga ku habooneed waaye ma lagu sheegay when you know marka qaar sidii karo ugu haboonta habtan waa la bishid gareena waa marka qofka ka dareemayso culays badan oo saaran yahay asleeda culayska kaliya waxa ugu daji kartaa ina qofkan garabka ku saxiisid ama laabta aad galisid garaac wadniisa aad dareentid ama adiga u baahan waxa dhisideeda ku nafis kartaa waa marmarka qaar kood waxa u baahan tahay habta adam goodba afka ka dhihi karin oo qofka aad macsalaameyn karin habta ku hadlayso marmarka qaar kood farxadaada aad ku cabiri karin erayo oo boodboodka meel kasta inta kula tago ala qab u muujisa allahin qof inta laabta galisa waxa dhigi kartaa momentiga waa kana ku farxsanahay waxa la hayeshay farxada zaada ku qaba oo u dibaalday kartaa oo tiraayo kartaa qaab kala duwan oo isticmaali kartaa laakiin waqtiga saxda ee loo isticmaali karo habta ada ogaanaysid xilliyadaas iyo xilliyo kale oo ku haboon waxay ka dhigaysaa habta inay ka badan tahay laabis gelis ama gacmis dhaafsi waxay ka dhigaysaa daawo hal mid isla fahno habta ma ahan inay noqoto sexual dadka qaar kood wax kali oo cad waxa waaye dareen kale oh my god it doesn't have to be sexual macalinkaaga habsi kartaa waalidkaaga habsiinaysaa walaasha habsiinaysaa walaalka habsiinaysaa dariskaaga habsiinaysaa xilkaaga habsiinaysaa jacaylkaaga habsiinaysaa even qofka xiriirka la leh asjeceshiin ama ninkaaga ama naagta marka habsiinaysid ma aha macnaheedu inay sexual noqoto please waxyaabaha qaarkood meelaha uu dhaaf kale amansi this dareen waxa waaye safety inuu ku dareemo qofkan mar haddii qofka hab u siinaysid sexual ahaan please iska dhaaf amansi qol raadso meel kale it doesn't have to be that way okay marmarka qaarkood bulshadu waxay fool xumeynayaan every form of physical touch inay ka dhigaan sexual no just because bajaja soo raacdo qof gabadha ku afdhiisa adoo wiil ama inuu afdhi it doesn't have to be sexual inay ku noqoto maahan amansi it's just laba qor istaafto way maskaxdaada nadiifso every physical touch in a sexual ka dhigitid ma ahan baayida sida maxaa keenaa cuud bilahi wixii sexual meel iga dhig qorshooyin kala loo diyaariyay habta waxay noqon kartaa mid safe mid saafi waxay noqon kartaa mid ku dareensiisa deganaansho waxay noqon kartaa mid walaaltinimo saaxiibtinimo naxariis bini'aadanimo xayawaan habsiin kartaa so anything inuu noqdo sexual ma everything marmarka qaarkood waa ognahay habta waxay noqon kartaa wax awkward like muhrij ma taqaanid qaabka loogu waxyeeshmeeyo qof hab siirta like hal dhinac ku soo hal gacan tii la wadaarta korma adeeg gacmaha intii marsiina like ama ku daahina misla qorxo like ma la socdo macnaha awkward noqonay maashi iyo waxa u sameeyo ku qabanaysa and then waxa fiirinaysa ujeedada u sameynaysa qofkan sababtoo dhinac habku siinaada inta uu ku siinaysa ujeedadu waxa way qofka kale wanaag dareensiina meesha joogtid so macnaheedu ma aha inay meesha ka qaadayso ujeedkii markaste waa laba qof oo iska taxadarayso oo raadinayso qofkan kale farxadiisa ama wanaajinayso ama rabto inuu la xiriirto laba ruux waxa waaye inay isqanciyaan diyaar u ah it doesn't mean marka awkward iska meesha ka qaadayso so isla fahma marka aadi iyo saaxiibadaada kala yaqaano saaxiibka gees habka siinaysid midka gadaal habka siinaysid midka hor habka siinaysid midka xambaarsanaysid midka ku istaagaysid ada kala yaqaan anytime any way oo salaam karta saaxiibkaaga ama walaalkaaga ama hooyadaada ada yaqaan aniga ma kala naqaan so habta ugu macquulsan ay idinka dhaxis qoftaas soo hela adiga idinta taas so waxay soo fiirinaysaa marka geesaha fiiri qofka kugu dhow ajashaha aragtid habsi waxay ku degdegin igboos iyo kaltuur maaha dareen qofkan waxa la wax orowina ku dhaho adina waxa aragtid ada af kala qaadin
qasab ma qofkan muhiimad uu ku leeyahay afka ugu sheegtid marmarka qaarkood wax kaliya oo baahna waxa waaye hal hab adigna gurkaaga wax ka dhigtaa maalinkii ugu yaraan inaad heshid 10 hab ama aad dhibtid adiga xataa okay because markas aad naxariis aad bixisid naxariista mid lamid waa dareemaysaa kugu soo laabanay ilaahay subhanahu wa ta'ala ajru ka siinaya thank you very much waa ku maasanta daawashadiina jimcaha dama noqolan insha Allah been sheego tokadan insha Allah dhahay okay jimcaha dama noqolan tan iyo muuqaalkeena xiga bye bye It's over again きっと疲れてるんでしょ口をいて私の腕の中へよしよしすべてうまくいくよよく頑張ったねもう休んでいいんだよ